magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar waxaa si ballaaran lagu soo dhaweeyay dhalinyaradii barnaamijka shaqo qaran soo dhameysatay gaar ahaan qaybtii gobolada Sool iyo Saraar soo dhaweyntan ayaa waxaa ka qayb qaatay maamulka gobolka ka degmada taliska qaybta booliska iyo mas'uuliyiin kale waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay maayirka degmada Caynaba Xasan Yuusuf Aadan ku-xigeenkiisa Cabdixaafid Ibraahim Libax Salaax taliyaha qaybta booliska gobolka Saraar gaashaan la sare Maxamuud Yuusuf Cige iyo mas'uuliyiin kale waxayna si weyn ugu hambalyeeyeen dhalinyarada ka soo baxday soo dhameystay barnaamijka shaqo qaran qaybtiisa saddexaad عدي صدحات سول إيو سنار كسب حي وحنا تقصوا دويننا كعما فرن قلبي يعني قصوبا أيام تقصوا دويننا وحنو لا نهاي إلى هاي مسؤولية عقادين يعقون تصبرتين هيدو كاسترو بعرف فكر كي كسب محذي مدحوينها جمهورية سومالي لان أمر دالي marka labaad waxaan leeyahay kolba dunida diil baa u kaco diin la soo shira war maanta gobolkii Sool horumarkiisa qayb ka noqotaan dufcadii hore kol markii hore kolay meelo badan bay ka galeen dufcadii idinka horeeyay idinayna halkii ka sii wadaan oo dadaalkii hore loo waday asii muujisaan oo gobolkeeni waxbarashadiisa ay tahay caafimaadkiisa taariikhda bulshada tahay dhamaantood kor u qaadaan ayaan idinka rajaynaynaa oo horumarka runtii gobolka ka ifay dowladda deegaano cusub ah kolay gobolka oo dhan ka dhashay ina kuwa garabka sii qabataan idin rajaynayo Ilaahay Kariim in dooraan idin suginay si aan idin soo dhaweyno idin la qaybsano farxadda maadaama muddo ku soo jirteen hawl adag inba waxay dhiirigelin u tahay ardada soo socota kuwa wax dhiganaya kuwa jaamacadaha ku jira iyo kuwa dugsiyada sare dhiganayaba ay dhiirigelin u tahay arintan waxaan uga mahad celinaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo markii xukunka kursiga fadhiistay arintan runtii ku dhawaaqay shaqada qaranku kulay waa arin loo baahan yahay madaxweynuhu arinta uu asiibay waa loo baahan yahay qofku inuu taadkada ciidanna barto adduunyada dawlad aan ciidan lahayn ciidan ma noqoto imka hadii loo baahdo Ilaahay balay naguma keenay waxa weeyaan difaaci iyo habkii nidaamka taadkadii waad garanaysaan iyagoo kamida difacadii labaad ee shaqo qaran ee ka soo baxday kana horeysay ardayda maanta caawa halkan loo taagan yahay lagu soo dhaweeyo waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa madaxda midda labaad waxaan oranayaa waxaan u sheegayaa dhalinyarta muujisa inaad u shaqeysaan dalka iyo dadka iyo diintaba midda labaad aan oranayaa waxa weeye maanta wasaaradda waxbarashada hadaan nahay ardayda shaqo qaran heer baan u gaarsiinay heerka aan maanta kaga tagnay difacad ahaan labaad waxaan insha Allah rajaynaynaa inaad halkii ka sii qaadaan sidoo kale qaar kamid ah dhalinyarada barnaamijka shaqo qaran soo dhameysatay ee gobolada Sool iyo Saraar ee habeenkii xalay ahaa si weyn lagu soo dhaweeyay magaalada Caynaba ayaa ka mahadnaqay soo dhaweynta lagu sameeyay magaalada Caynaba hadii way inaan maanta soo nabad hooyanay oo aanu nimaanay hooyagii markaan ka kicitinay oo aanu aadnay shaqada qaran halkan waxaan maanta ku mareynaa dhalinyaradii matalaysa gobolka Sool saaka roorti ka soo kacintay xarunta carbiska shaqo qaran ee Dhaweeyey marka koowaad ilaahay baa mahad iskale marka labaadna waxa uga mahad celinayaa madaxweynaheena Muuse Biixi oo isagu lahaa fikirka in dhalinyarada loo jiheeyo waji cusub loo jiheeyo marka labaad waxaan u mahad celinayaa macallimiinteena ahaa aabayaasheena jaamac boodacade warbaahinta qaranka Soomaaliland Caynaba